munaasabada konton iyo shanaad ee ciidanka xoogga dalka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Muqdisho ayaa ku bilaabatay iyadoo dhammaan ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ay socod ku marayeen qaybo ka mid ah gudaha wasaaradda. ciidamadan oo ay ka muuqdeen diyaargarow buuxa ayaa ka koobnaa dhowr qaybood oo ay weheliyaan gaadiid dagaal oo kala duwan. bandhiga ciidanka iyo diryankooda ayaa dad badan oo ku sugnaa gudaha wasaaradda waxay xasuusisay waqti barsimaad ah oo Soomaalidu ay badqabtay. حسن شيخ محمود مدحوينها الصومالية تليها عيدن كحوق دلك وزيرك gaashaandhigga حكومة فدرالك الصومالية ayaa taagnaa meel u dhow halkay ciidanku marayeen waxaana muuqanaya hogaanada ciidanka oo salaan sharaf siinaya madaxda kala duwan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareed Guuta Daa'ir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo khudbada waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka jeediyay howlka shirarka ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sanadkii tagay ee al-shabaab ka saareen deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. awood ilaalisa daafacda midnimada iyo qarnimada ummadda Soomaaliya. haddii aan waxay u noqdo taariikhda xoogga dalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuu fuliyay kaalintii loo igmaday ummadda Soomaaliyeed markaatibay ka ahayd sidii wadadii uu soo jiray konton sano ahayd qayb uu ka qaatay maxaan ku radaa ilaalinta sharafta ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda. madaxweyne mudane marwood waxaan idinkugu bishaaraynayaa in argagixisada al-shabaab ay ku guuldareysatay dagaalkii afkaarta iyo adeegsiga diinta. maxaa yeelay waxaa shacbiga Soomaaliyeed u garwaaqsaday in al-shabaab u isticmaashay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Generaal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa 12 Abriil ugu hambaliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku beegan 55 sano ka hor markii la aasaasay maanta oo kale. aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo lagu unkay ciidan qaran oo tiro yar laakiin tayo aad u fiican leh. waqtigaas intii ka dambeysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray xaalado kala duwan oo uu ku horumarinayay discipliinkiisa, tababarkiisa, tiradiisa iyo qalabayntiisa. taasi waxay keentay inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu si fiican u hantiyo difaaca xuduudaha dalka oo ah dhul, cid iyo bad. waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku ammaanaa bulshada xilkaas weyn oo u hayay ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhamaadka munaasabadan hadal jeediyay ayaa ku dheeraaday ka hadlidda munaasabada ciidanka xoogga dalka iyo sida shacabka Soomaaliyeed ay isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta ammaanka dalka Soomaaliya. mar uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ee la filayo in dalka ay ka dhacaan sanadda 2016 ayuu sheegay in si badqab ah ay dalku ugu dhici doonaan doorashooyinka waxaana uu meesha ka saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warar sheegaya in dawladdiisu ay waqti kordhin samaysan doonto. dhammaan gudaha ciidanka dalka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliskiisa guud saraakiishiisa muxuu ahay qaybaha saraakiisha ciidanka saraakiil xigeenka dadleyda alifleyda iyo jilidka iyo xaasaskooda intaba waxaan leeyahay hambaliyo dalka 2016 isbedelkii aan ballan qaaday inuu ka dhaco waa CDC wax la iskaga bedelin. dadku doorashooyinka dhacaya marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa qof walba inuu maskaxdiisa ay u sawiran tahay qof kastoo Soomaali ah oo codeeya geed kasta iyo caaw kasta iyo tuulo kasta oo maxaa ku raasay duuqa codbixinta yaallo waa sida doorashooyinka lagu qaado waa jecelnahay waan u soconaa inaan yeelo ilaahay. laakiin haddii aan meeshaas kaa ugu fiican aan gaari karin ma fadhiyayo meesha aan gaari karno inta aan gaari karno aan gaarina. marka 2016 mar labaad inaan ku celiyaan rabo korsiima ma jirto. mar kale
soomaaliyeed inaan u sheegaan Hiroshima ma jirto ajandaheena ka mid ma aha Hiroshima 12 abriil sanad walba ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga dhigan tahay maalin wacan oo wanaagsan iyagoo uu weyneeyay isla markaana u dabaaldega markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku soo wareegatay 55 sano. Aways Maxamed Bilcow, Royal TV, Muqdisho.